سياسي مركا public figure نقط سيادة وين الديار وتهاي ضدك وحي كاشي لا إله وين الديار وتهاي أما دليلته بين هالنقطان أما دليلته بين هالنقطان متكير بين هالنقطان سلبي أم إيجابي متكير بين هالنقطة وأفتهن هذا اللي يقان اسكندر سدي مادي الديني عبد الرحمن عبد شكور ورسمي وحو كل شيء دقمده بولبرتي قبل كهيران بلاوي لحدماتكي waxbarashadiisa hoose dhaxaya sare waxa uu wax ku bartay isla magaaladii uu ku dhashay cabdiraxmaan waxa uu dalka Suudaan u aaday bilowgii heerkiisa koowaad ee jaamacadda waxaana uu bilaabay barashada cilmiga sharciga shahaadadiisa koowaad kadib waxa uu mar kale bilaabay shahaadadiisa labaad inuu ka diyaariyo jaamacad ku taala waddanka Malaysia wuxuu koorsooyin la xiriira qorsheynta hoggaanka maamulka iyo xallinta khilaafaadka dhismaha iyo nabadda xiriirka siyaasadda uu ka sameeyay macadka hoggaanka iyo maamulka London ka hor inta uusan ku biirin siyaasadda waxa uu madax u ahaa hay'adul culya oo ugu shaqeeyay arrimaha bini'aadanimada intaasi kadib waxa uu dhaqaaqay arrimaha siyaasadda مشرح مدحوينه waxaan ka codsanayaa cafis inuu icafiyo oo cafis baan ka dalbanayaa cafiskaas waxa keenay baan rabaa marka iyo taageeradaba halkan inaan ka cadeeyo waxa jirtay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa been fakatay run uma gaarto waxaan ka mid ahaa dad loo dhiibay ama cayrsaday kubad aan gool lahayn kubaddu haday gool leedahay way dhalataa laakiin hadaysan gool lahayn ma dhalato waxa uu ka mid ahaa dadkii dhisay Somali Consent Group iyo Somali Diaspora waxa uu madax ka noqday xarunta saddexaad ee islaamiga ugu weyn ee London waxa uu madax ka soo noqday xaruntii saddexaad ee islaamiga ugu weyn London mar ayuu noqday tafatirihii majalada Hiral waxyaabaha taariikhda uu ku galay ee lagu xasuusan doono waxaa ka mid ahaa inuu qayb ka qaatay arrimihii dib u heshiisiinta dowladdii ku-meel gaarka ahayd iyo isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya waxa uu ahaa hogaamiyihii waqtigaasi horkacayay sanadkii 2019 waxaa markaasi lagu dhisay dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed baarlamaanka Soomaaliya ayuu xubin ka noqday isla sanadkaasi waxaana dowladdii la dhisay uu ka noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga intii uu xilkaasi hayay waxa uu soo hooyay guulo waaweyn waxaana uu noqday shirgudoonkii 20 sano kadib shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ka dhacay dalka Masar waxaana hogaamiye u noqday guddigii loo doortay inay xalliyaan khilaafkii ka dhex jiray wadamada Suuriya iyo Ciraaq 2012 markii la dhisay dowladdii Xasan Sheekh waxa uu noqday la taliye sare ee madaxweyne Xasan Sheekh waxaana uu ahaa shaqsigii loo doortay inuu hogaamiyo shirkii London waxaana uu ahaa shaqsigii hoggaanka u ahaa
wadahadaladii maamulada Jubbaland iyo dowladii federaalka ee Xasan Sheekh. ماشي لو لا تفضل هذيك maanta waxaan ku soo noqday Muqdisho ayagoo madaxweynaha u adeeysan yahay waxaan leeyahay madaxweynaha adiga ay soo weeraray oo amar ku bixiyay guriga inay ku soo weerarto wiilashii askarta ah iga laayay kabaha ku aasay maxkamada isla tagnay sharcigan ku kala baxnay waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaad diray waxay tahay adiga xildhibaanada waa eedeysantay sharciga ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer Muqdisho u jiro maanta waxaan rabnaa reer Muqdisho hadaan inaan dhiraano waa markii ugu dambeysay soo ayagu ma dhigi jiro waa markii ugu horeysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambeysay oo jidadkana la ka xirto waa markii ugu dambeysay oo cashuurteena la dhaco markii ugu dambeysay oo qoray oo taliyo waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa la isku cabirinayo saxa inta laga sheegay taangiga amisom la isku ma caburi karo ki Ethiopia la isku caburi way marka taas aan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersanahay sharafta leh mooshinka ay keeneen madaxweyne farmaajo wax Soomaalnimo waa ka weynay mar kale wuxuu la taliye sare u noqday labadii ergey ee ugu dambeysay qaramada midoobay kuwaasi oo kala shaqeeyay dib u dhiska arrimaha doorashooyinka arrimaha amniga iyo siyaasadda guud ee Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu noqday hogaamiyaha xisbiga wadajir koor intii uusan 4 sano ka hor isku soo sharixin xilkii madaxtinimada dalka hadda waa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee soo socdo qofka markuu public yahay waa la isku dayaa in la gareeyo laakiin waxa muhiim ah waxa loo sheegayo qofku wax loo sheegayo waxa wax suuroobi kara waa su'aasha u baahan qofku wax loo sheegayo inuu isweydiiyo siyaasiyiinta waa dan leeyahay sasta way isdagaalaan hadda haddii aad maamulka hadda jiro weydiiso akhuuna farmaajo xasan khayre nin qalbi dhagax la yiraahdo god ugu jiro oo shaafadaysan maanta oo dhan toban waxa laga sheegaa waa maqasheen toban dacayada lagu haya iska dacayada iska caadi waaye laakiin arinta ku saabsan arin masiiri waaye dacwada Kenya ka dhaxay Soomaaliya arintaas waa arin maxkamad taalo waxaana filayaa waxa kaliya oo maxkamadda hadda lagu badbaadaba is afgaradkii dawladdaas Shariif madaxweynaha ka ah Umar Ra'iisul Kana wasiirka aan saxnay oo golaha wasiirada la marsiiyay oo kabinetka laga ansixiyay oo baarlamaanka la geeyay oo baarlamaanka diiday marka dawlad nidaam process maro ah haddana maxkamadda asaga u baahan asagiyaan hadda uji kalaba hadda la haayaba male kayskaas marka xiraaliyaha iyo maxkamadda iyo looyarada looga wakiilka ah kuwaas hadda ka bacdi in weydiiyo ay tahay ay tin inaan wax sax sameeyno wixii sax hadda lagu badbaaday wixii dacayadan la sheegay yani macno weyn ugu male kana ay weydiisay xeer ilaaliyaha guud ee dawladda federaalka oo aan aad ugu duceeyay markuu shirka jaraa'id qabtay uuna yiri warqadii oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur saxiixay iyo tiimkiisu ayaa badbaadisay badeena Soomaali oo dhanna u soo celisay hankii baddaas ay ka lahayd
waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo anigu haddee arrin shakhsi ah col uguma aanan ahayn cabdiraxmaan cabdishakuur laakiin kubaddii la ii dhiibay maalintaasaan goolkii aan gashay wuxuu noqday inaan musharaxa madaxweynahana cafis weydiisto dibna uga laabto fakarkii aan qabay oo ahaa in dhibaato halkaa ka jirtay ugu dambeyn waxaa wajahayaa eedeyn ku aadan xadgudub arrimaha diinta taasi oo noqotay midda ugu hadalheynta badan labadii isbuuc ee lasoo dhaafay mar la weydiiyey asaga arrintaasi waxa uu ku tilmaamay mid ay ka dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda lana siyaasadeynayo isaga iyo culimmadana la iska hor keenayo isweydii arrimahaasi saameyn ma ku yeelan doontaa hamigiisa 2022 oo iskugu soo sharaxi doono xilka madaxtinimada maadaama uu yahay gudoomiyaha xisbiga wadajir siyaasadda iyo diinta anigu maba ii kala saarnaba waa isugu kay mid diintana waa siyaasad siyaasadduna waa diin waxa aan ka hadlayana waxaa waaye gabdhaha Soomaaliyeed inaan la afjigin oo aan lagu afjiginin fasir qaldan oo xadiista nabiga laga bixiyo sida joogtada ula socoto waxay idin soo gudbin doonaa taariikho badan oo ku saabsan siyaasiyiinta musharaxiinta u noqon doona Soomaaliya 2022 oo foodan ugu soo hayso Till my shadow turns to sun rays and